بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan soo booqday noo yimid wafti heer sare ah oo ka socda IGAD oo hogaaminaya madaxa u sareeya IGAD iyo UNSOM madaxdeeda waxay la kulmeen madaxweynaha dawladda Puntland iyo wasiirada qaarkood waxaan ka wada hadalnay guud ahaan geedi socodka dib u dhiska Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa deganaanshaha siyaasiga ah ee dalka iyo loona yareyn lahaa khilaafaadka jira ma aragtay oo ah hadee runtii shaqadooda ay tahay IGAD iyo UNSOM labadaba shirka wuxuu ahaa shir mina dhal ah oo aad iyo aad qodobo badan oo arrimaha quseeya looga wada hadlay la islana fahmay waxa kaleeto oo dawladdu si gaar ah ay ugala hadashay la iskuna afkartay in gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn la gaarsiiyo adeegyada bulshada iyo mashaariic horumarineed labadaba goboladaas oo dawladdu mudnaan gaar ah siinayso ahna gobollo horumarka gobolada kale ka jira uusan gaarin si baaxad leh ayadina way soo dhaweeyeen waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo inaan arrintaas sii wadno ayaguna aan la wadno sidii ay u gaari lahaayeen wax ku ool ah oo dadkaas noloshooda iyo taabanaya wax qabad ah inay gaaraan si guud shirka marka wuxuu ku soo dhamaaday guul iyo safgarad buu ku soo dhamaaday waxaan kale oo rabaa inaan fursaddan ayadan uga faa'iideysto idinku bishaareeyo dadka ugu bishaareeyay reer Puntland asbuucii hore waxaa garow kula kulannay oo noo yimid wafti heer sare ayaguna oo dawladda Jarmalka ka socda qaybaheeda kala duwan wasaaradda horumarinta ku xigeenka maaragtay safiirka Soomaaliya u fadhida bangiga horumarinta ee Germany GTZ iyo dhammaantood waxaan markaa ka codsanay mashaariic horumarineed oo ay nagala shaqeynayaan waxaan rabaa inaan ku guuleysanay oo ay aqbaleen dhowr mashaariic oo muhiim u ah horumarinta dhaqaalaha iyo Puntland waxa ka mid ah inay la dhisi doono ay ogolaadeen iskuul weyn oo farsamada gacanta ah oo dhammaystiran oo laga sameeyo degmada Waaciye iskuulkaas oo noqon doona iskuul u adeega mataqaanaa kaafiya wax ka qabta ciladii xilliga dheer taagneed baahidii waqtiga dheer taagneed ee dhinaca farsamada gacanta ama wax loo yaqaano skill developmentiga sidoo kale waxay naga aqbaleen oo ka shaqeyn doonaan iskuulka asna sidoo kale asoo kala ah oo farsamada gacanta oo Garowe oo asaguna Nugaal iyo Sool iyo inta midug iyo wixii la halmaala ay uga faa'iideyn doona ilaa iyo kulligood gobolada la wada gaarsiiyo waxay kale oo ayagana mashaariic caafimaadka oo nala wadeen ayagana in dhaqaale qaarkood aan uga helnay waxaan kaloo ka helnay lacag noo ballan qaadeen 13 milyan iyo bar ah oo wax looga qabanayo dhinaca kale arrimaha horumarinta dhinaca dhaqaalaha iyo productive sector-ka khaasatan wax soo saarka xoolaha iyo beeraha iyo dhankaas aad iyo aad baa waxa ugu faraxsanahay siday hadda u socdaan yani mashaariicda horumarineed oo waddanka soo galaysa oo mudnaantii dawladdu iyo baahiyihii ay dooratay kulligood siday u kala leeyihiin loogu kala aadinayo arrintaas marka ayadana ugu bishaareynaya dadweynaha reer Puntland intaas ayuu ku saabsanaa shirkii maanta hore aan u sheegay ama mahadsantiin